بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan meel kasta oo naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ah SABC TV ugu horeeyay oo idin ka imanaya istuuriyaha TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland qodobada ugu badan ee warkayga maanta waxaan ku soo qaadan doonaa siyaabaha kala duwan ee telefishinka loogu soo dhaweeyay dal iyo dibadba warkana waxa uu diyaar ah aniga oo Maxamed Triga gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland shirgudoonka golaha wakiilada xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida xukuumadda Soomaaliland xukuumadda wadankaasi Soomaaliya ururka saxufiyiinta Soldier culimada iyo waliba madax dhaqameedka iyo salaadiinta wadamada Soomaaliland Soomaaliya iyo Djibouti ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay TV-gan una soo jeediyay talooyin gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeysay booqasho ku joogay wadankaasi Ethiopia ayaa si heersara loogu soo dhaweeyay magaalooyinka Wajaale iyo Gabiley madaxweynaha wadankaasi Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiin ka timid wadamada Jarmalka iyo dalka Masar magaalada Sheekhna waxa markii ugu horeysay laga hirgeliyay buurta aan idhaahdo dowga loo yaqaan u dhaxaysa magaalooyinka Hudisa iyo Sheekh goob dalxiis oo casri ah taasoo noqonaysa tii ugu horeysay ee laga hirgeliyo halkaasi wadankaasi Djibouti waxa lagu qabtay shir lagaga hadlayay waxyaabaha keenay nabaad guurka kaasoo ay ka qayb qaadanayeen khubaro kala duwan wadankaasi Hindiyana waxa uu markii ugu horeysay hawada u diray 104 dayax gacmeed hal mar oo kaliya taasoo noqonaysa tii ugu horeysay ee wadankaasi sameeyo kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada had warkayga ku maqal doontaan iminka iyo haatan oo diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kaleba